Assalaamu calaykum. Ma is weydiisay sidee bay noqon lahayd nolosheennu la'aanteed Google? Maanta haddii aan wax weydiinayno, haddii aan meel u safrayno, ama haddii aan iimayl dirayno, Google waa saaxiibka koowaad ee aynu u cararno. Laakiin ma ogtahay in shirkaddan bilaayiinta dollar ku kacaysa ay ku bilaabatay mashruuc arday jaamacadeed ay wadeen, magaceeduna uu ahaa wax aad uga gedisan magaca aynu maanta naqaano? Sheekadu waxay ka bilaabatay jaamacadda Stanford ee gobolka California 1996. Laba arday oo bartay cilmiga kombiyuutarka, Larry Page iyo Sergey Brin, ayaa bilaabay mashruuc cilmi baadhis ah. Magacooda koowaad ee ay u bixiyeen mashiinka raadinta ma ahayn Google, laakiin wuxuu ahaa Backrub. Waxay ugu bixiyeen magacaas sababtoo ah nidaamkoodu wuxuu ku shaqaynayay qaab uu ku baadhayo xidhiidhada gadaal ka yimaada backlinks-ka, halkii ay ka eegi lahaayeen inta jeer ee kelmaddu bogga ku jirto. Sida mashiinada kale ee xilligaasi ay u shaqaynayeen, waxay hindiseen nidaam cusub, PageRank. Waxay rabeen inay ogaadaan bogagga ugu muhiimsan iyagoo eegaya inta jeer ee bogag kale soo xigteen. Dhowr sano kadib, Backrub wuxuu isu beddelay Google. Magacan wuxuu ka yimid ereyga xisaabta ah Gogol, oo ka dhigan lambarka 1 oo wata 100 eber. Tani waxay muujinaysaa hammigooda ahaa inay habeeyaan xogta baaxadda leh ee adduunka taalla. Sannadkii 2004, Google wuxuu bilaabay inuu lacag sameeyo, isagoo soo saaray AdWords. Tani waxay ahayd xilligii ay ganacsiyadu bilaabeen inay iibsadaan kelmadaha raadinta. 4 sano kadib, sannadkii 2004, Google wuxuu galay suuqa saamiyada eBay, isagoo markaas lagu qiimeeyay $23 bilyan. Ma xasuusataa halku-dhigoodii caanka ahaa ee ahaa "Don't be evil", ha noqonin mid xun? Waxay ballan qaadeen in adeegga bulshadu uu ka muhiimsanaan doono dakhli raadinta. Google kuma ekaan oo qura mashiinka raadinta. 2002, waxaa soo baxay Google News. 2004, waxaa dhashay Gmail oo beddelay qaabka aan u dirno fariimaha. 2005, waxaa yimid Google Maps. 2008, waxaa la soo saaray Google Chrome. Haddaba, si loo maamulo dhammaan adeegyadan kala duwan iyo mashaariicdan tiknoolajiyadda, 2015, Google wuxuu isu beddelay shirkad weyn oo dallad ah oo la yiraahdo Alphabet Inc. Laakiin waddadoodu mar walba ma ahayn mid siman ama mid smooth ah. Google waxay soo martay caqabado xagga sharciga ah, gaar ahaan arrimaha ilaalinta xogta privacy-ga iyo cashuuraha. Xaqiiqooyinka la yaabka leh waxaa ka mid ah in sanadii 1999, in Larry iyo Sergey ay rabeen inay shirkadda Google ka iibiyaan shirkad la yiraahdo Exit lacag dhan $1 milyan. Madaxdii Exit way diideen. Maanta, Google waa mid ka mid ah shirkadaha ugu qaalisan adduunka, qiimaheedu wuxuu marayaa trillions. Haddaba, guntii iyo gabagabadii, safarka Google wuxuu ina barayaa in fikrad kasta oo yar, haddii si dhab ah looga shaqeeyo, ay beddeli karto adduunka. Maxaad adigu ugu jeceshahay adeegyada Google? Mise waxaad tahay dadka weli ka walaacsan xogta ay naga ururiyaan? Noogu reeb ra'yigaaga qaybta kommentiga.